first of all, I have the honor to stand up because they are honorable members of parliament here. My boss, the honorable speaker, my professor, my land professor, and my elder, the deputy speaker, honorable members of parliament. It is my pleasure to meet you this afternoon. xildhibaano sharfan waan idiin soo joogsanaya gudoomiyaha golaha shacabka professorka odayga ah waxa weeye dhammaantiin xildhibaanada waa idin wada salaamaya. Honorable members of parliament, you really know that we are here because there's an issue which is going on. waxaad la socotaan xildhibaano inaan u joogno arrinta socota awgeed. The issue is between the legislature and the arm of government, which is the executive. mushkiladda taagan waxay u dhaxaysaa sharci dejinta iyo laanta fulinta. I am General Paul from Uganda. I'm not new here. In 2011, I was here when I was capturing this town. waxaan ahay generaalkaasaan ahay waxaan ahay qof oo dalkan aad u yaqaana 2011kii waxaan ahay jarankii oo muqdisho xoriyay. I don't know why I've been brought again here for the second time. I will have got to understand why, but these are the challenges I'm going through. ma aqaano waxa